lacag gooniya that's why adduunka dhan uu u hormariyey insuransiga caafimaadka oo qof walba kaar caafimaad u haysto because caafimaadka lacag ma hayto mana taxi mana cashuuro mana maaragtay lacagna laga baraadiyo waa wax oo bili-aadnimada ku saalaysan waa sida ninka caalimka ah oo sheekha fiqiga uu sadaqta lacag uga qaado maanta hadduu kitaab tafsiir akhnaa ma lacag qof ka qaataa hadduu masaajidka wacdi saasoo kale waa caafimaadka labada cilmi oo maaragtay ilaahay dadku ugu manaystay oo ugu fiican oo waxa waaye qofka bili-aadamka lagu badbaadiyo waa taas waa loo yiri qofka qof badbaadiyo wuxuu la mid yahay ummad dhan badbaadiyo soo marka adoo lacag ka qaadanaysa kula mid tahay ummadda inaad ka badbaadiso marka miskeenayso inaad lacag isku darsato iskuna darsato maaragtay ajirka isku darsato marka caafimaadka waxa waaye waa wax maaragtay oo humanitarian bili-aadnimo waaye naxariis waaye kaalmo waaye marka inaad taas ugu fikirtaan oo aad ugu fikirtaan inaad maaragtay bulshadiina ugu caawisaa hadduu yahay deris hadduu yahay maaragtay walaal hadduu yahay qaraabo hadduu yahay saaxiib iyo meel walba aad joogtaan irsaaqda marka ilaah bixiya ninaan wax baran idin wax bartay ilaah si irsaaqda kuma xirno caafimaada bartay iyo kuma xirno maalintaa dhalatay aabbahayo milneer caanuhu soo shaqeey ma cuni jirta ilaahay naas hooyada kugu diyaariya irsaaqda u taasama maalintaa dhalatay ilaa hadda waa kuwana fiirsa u qurux badan tiifiir hal doolar shaqaysta guriga ma cunin ma fahmaysa maaha waayo se ku dhacda inta see bixina ilaah bixina aabbaha wuxuu keenay mar hooyada waxay keentay marka maxaa la rabaa inaad ka bixisaan maskaxdiina waxyaalahan kiyaaliga ah oo bulshadeen lagu jahwareeriyey inaad xoog ka saartaan waxbarashada saad ku noqon lahaydeen dad wixii ay sheegayaan micnaha ay xambaarsiin ka turjumaya dhakhtar liida dhakhtar sax ah dhakhtar beenaad may waxaa imaaday marka in la yidhaahdo qofkaan dhakhtar waaye shaqo si laakiin marka iskiilka la fiiriyo dhakhtar ma la fiiriyo uusan taya lahayn aabbaha caafimaad maahan ada dhakhtar u tahay laakiin dhakhtarka ruqay toorkaalkacyo iyo doctor carabi dadaalka aad ku bixinaysaan tay u qaadida tababarka caafimaadka dalka waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa maamulka jaamacadda oo garaadsaday in maaragtay muhiim ay tahay in lasoo engage gareeyo dhaqaatiirta la keenay isbitaalka loogana faa'iideeyo isbitaalkan oo wax collective oo community wada leedahay the only matter waxa waaye see uga faa'iidaysanaa fursadaas jirta marka resources uga faa'iidaysanaa resource ilaah uu nisi wax uu nisi community-ga arkaysiin intaan oo kale haystaan way ka faa'iidaysteen ma garata in isbitaal wax ku barataan shardi kuma xirna kulli waxay ku xiran tahay rabitaan inaad ka dhigto commitment. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.